يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من حال أهل النار. وإن درس كان شرح رياض صالحين كأبواب أينو كدوران إنه سيادتي إن كتاب كان رياض صالحين كوحى قري الإمام النووي رحمه الله تعالى شرح إنه كفاية سنه إنه شرح وبحيي الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وأبواب إن أينو دوراني ويان بعد الأبواب نسلينا هاي فائدة يا إن شاء الله بإذن تعالى أي كل شرطين كسو كتابك إن شاء الله لما نتوه فائدة هي لكن وقت قامنا والدورة ستحشا مركا إن قيبة كميدا أينو كدورنا واختيارات ويان باب كوجور ريا وحا ويهي وإن أي حاران تهي إن لا خلوضه قبل أجنبية أجنبية دونا وقف وهويني ده أي قف كننكا وحلال تهي إنه جورسن كرايو تاسع أجنبية كا هذي مربع أي حلال كوت هي إنه جورسن كريسو أجنبية أي كاتاي مركا تحريم كينا وإنه نقطة تحريم مؤبدا وإنه نقطة أبدية وواحد شراء تحريم مؤقتة إنه ننكو حاس كيس ولا شيء وجرسدا طبعا وكحرامية لكن هذه أي حاس كي أي كلا تجان يجوز له ذلك إنه حاس يعني دماشيدي إنه جرسدو وأو حلالوية marka dadka qaar baa u haysta inuu ninku dumaashidii uu la khalwoon karaayo uu keli ula noqon karaayo taasina ma arrin banaan ma aha waayo xaraanimada ay dumaashida xaraanta ka tahay waa mid muaqata oo waxay ku xiran tahay uun muddada aad walaasheedu joogtaan is qabtaan gabar kasta oo geey karto oo guusan karto waxa weeyaan inaad la khalwooto aad keligeed meel kula khalwooto ama aad keligeed safar la gashaa ma banaana ayuha ikhwa way ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa uu yiri wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab hadii aydun wax weydiisataan fas'aluhunna min wara'i hijab يعني حجاب قداشي وحكوي ديسته طبعا waxa laga yaabaa in culimada qaar kood yiraahdaan aayadani waxay ku socotaa dumarkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam dumarkii rasuulka ayay ku socotaa laakiin imaam nawawi rahimahullah ta'ala wuxuu daliishanayaa in ay magaran samaxay toleeyna dadka dumarka kalena ay sidaasi magaran loola dhaqmo way وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحا يري
إياكم والدخول على النساء وتحذير ويان تحذير لإسكيدي جايو إن دمرك لو قالوا oo guri ninkii lahaa uu ka maqan yahay oo ragii aanay joogin in la iska galo ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam inooga digayaa way wana dhaqan horta intaan garanayo kulli Soomaalidii hore way lahaan jirtay wayna leeyihiin in uu nin gurigii oo ninkii lahaa uu ka maqan yahay oo laga yaabo inay gabar yar guriga lagu qabo intuu iska galo guriga ku garaaco ama ilmaadeer ha noqdaan ama ilmaabti ha noqdaan ama seedigeed ha noqdo intuu gurigii laga maqan yahay iska soo galo shaah loo soo sameeyo oo haweeneydii iska la sheekaysto walaayad billah waxaasina waxa weeyaan waa xaraama qofka muumkiina inuu dhaqanka wax ku qiyaasan ma hayo waa mushkilad weyn oo muslimiinta haysata waxa laga yaabaa inuu yiraahdo akhi waxa weeyaan wax ku jabani ma jiro maaha waxa laalo wixii ilaahay xaaraantimay ayuha al-ikhwa waxba ku jaban bil aadamiguna waxa weeyaan mar uun bay ogaadaan wixii alla xaaraantimay in wax ku jaban yihiin wixii alla xaaraantimay ama ku dheeraato ama in ku dheeraane manu bi gidaarka soo taabanayaan bal ikhwa ayuha al-aaga مثلكيو كله فاشن ربدا ليلي ربدا انترسكا يا دقالها كل سن ربدا انتباه بالآدمي lagu soo qalday been looga soo sheegay oo leeyahay waxa weeyaan free marketka iyo capitalismku waa heerkii ugu dambeeyay taariikhda bil'aadmiga Fukuyama waa Japanese American weeyaan buugiisa nihaayatu taariikh wuxuu bil'aadmigu ku siray sanado ka hor buu qoray uu leeyahay systemkaasi capitalismku waxa weeyaan waa nihaayadii ugu dambeysay ee taariikhda bil'aadmiga bimaana waxa weeyaan waa meeshii ugu dambeysay ee tajaaribta bil'aadmigu ay soo gaarisay wax ka dambeeyana ma jiro marka wuxuu ku baaqayaa in bil'aadmigu oo dhami ay tabaniyaan systemkaasi waa systemka ugu fiican nidaamka ugu fiican ama janibkiisa siyaasiyeed in dimuqraadiyadda ha noqdo ama janibkiisa dhaqaalaha ee in free market iyo in dhaqaale interest ku dhisan ha noqdo laakiin waxaan ogaanayaa ikhwa in ribadu ay tahay khatar tahay ilaahay horu uga digay waxaan garanayaa college-ka markaan dhiganayay bilow anoo ku ah halka Mareykanka gudihiisa ayaa wali waan xusuustaa ma ilaabo class microeconomics oo haban filaya aan qaadanayay dadana professorkii waxa dhigay ayaa maalinba waxa bariyahaas waxa soo ifbaxayay al-iqtisaad al-islaami islamic economics-ka ayaa soo ifbaxayay oo la soo baranayay marka ninkii professorka ahaa Mareykanka baa waxa weeyaan wuxuu aad isku day inuu qiimo rido systemkan islaam dhaqaalaha islaamka wuxuu ku tilmaamay inuu yahay system aan sustain gareyn kareen bimaana aan dhaqmi kareen ilaa dawladdu ay caawiso ay dawladdu ay fund kareyso waxay ahayd magaranaysa waa tuhmad beena waayo islaamku ayuu ikhwa dadka mulkiyad khaas ayuu siiyaa dadkuna markay baacishtariga ganacsi ay galayaan waxa ay wadaagaan khasaaraha iyo macaashka tawayaan walidaalka ayuu islaamku wuxuu xaraan yeelay aqdi kasto qarar ku jiro waa in khasaarihi iyo macaashkii waa in la wadaago waa taay ma koon aragnay financial crisis kan adduunkii oo dhan dhibaatada u geystay maalinka maanta ay in dadkii ay la dhibaatoodeen waxa la isku wada raacay ninkii khubarada iqtisaadiinta ahaa adduunku waxa ay leeyihiin sababtiisu waxa weeyaan waa amaahan faraha badan ee ribadu ku xirantay waa credit systemka weeyaan credit systemkan waxa isku qiyaasayeen dhaqaalaha sida ay in dadka Chinese ku